السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق أمريكا السوا الدنيا ذا كتشوكتان وولالكين سولومون بالله وقتيga يوها يدين وعنادان أصحابي هلكم waxaan doonayaa inaan ku duubo barnaamij taxane inoo noqon doona hadii Allah awood lagu ogolaado barnaamijkaas ciwaankiisu waxa weeye geedi socodka dhaqaalaha Soomaaliya sidaad ogtihiin badunidan maanta korkeeda aynu ku sugannahay waxa la isku gumeystaa waa laba shay shayga koobaad waa dhaqaale shayga labaadna waa aqoon dad badan oo ku xeeldheer arrimaha Soomaaliya ayaa aaminsan in burburkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dalka ay gudib u ahayd ama ay u tahay maamul xumo ku timi dhinaca dhaqaalaha iyo hantida dalka haddaba warbixintan waxaan si qoto dheer u eegi doonaa ilaha dhaqaale ee Soomaaliya iyo marxaladihii kala gedisnaa ee uu soo maray inta aan barnaamijka u guda gelin waxaan ka codsanayaa daawaday inaad YouTube-ka subscribe tahay videoguna hadii uu ku cajibiyo like tahay asxaabtaada iyo familkaaga aad u sii share garaysid wixii talo iyo tusaale iyo fikir aad noo haysidna barta faalada ee commentiga noogu reeb mahadsanid geedi socodka waxaan ula jeedaa waayihii iyo marxaladihii kala gedisnaa ee uu soo maray dhaqaalaha Soomaaliya laga soo bilaabo markii aynu xornimada qaadanay waa taariikh aan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan jiilasha cusub gaar ahaan dhalinyarta barata cilmiga dhaqaalaha sidaan ku arkay laguna sheegay warbixino aad u fara badan dadyoga Soomaaliyeed boqolkiiba 70 waa 30 jir iyo wax ka yar oo taa macnaheedu uu yahay ma arag waxaan dawlad la'aan iyo dagaal sokeeye ahayn taariikhda waxa la yiraahdaa way soo laalaabatay waxa looga faa'iideystaa khaladkii shalay la galay inaan dib loo gelin waxa ay soo jiitay hadal uu yiri nin la oran jiray Ranshofer oo xogeeyo ahaa gudidii kala talin jirtay gudidii qaramada midoobay ee kala talin jirtay arrimaha Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha markii uu soo maray dhammaan degmooyinka iyo gobolada dalka waxa uu yiri Ranshofer Soomaaliya waxay ku sugan tahay xaalad qabyaaladeed tii casrul jaahiligi mid ka daran haddii heerka qabyaaladu sida uu Ranshofer uu sheegaya ay tahay maanta waxa mustaxiil ah inay Soomaaliya ku soo laabato maslaxyada caalamka haddaba sidii aynu ku soo laaban lahayn maslaxyada caalamka wadada kaliya aynu qaadi karno waxa weeye inaynu qabyaalada geedka qabyaalada aynu gunta u jarno iska badaaya inaynu gunta u jarnee inaynu miina ku qarxino oo si ay uga soo hadho qalfoof aan naf ku jirin taa macnaheedu waxa weeye in dadyoga Soomaaliyeed ee magaalooyinka jooga loo abuuro mashaariic ganacsi iyo waxbarasho inta aan taariikhda fog u gelin bal horta aan tilmaan kooban ka bixiyo muuqaalka dhaqaalaha Soomaaliya ee maanta heerka iyo xaddiga dhaqaale ee dal kasta waxa lagu cabiraa tusaha loo yaqaan gross domestic product oo loo soo gaabiyo GDP waa wax kasta oo dalkaas laga soo saaray muddo sanad gudihiisa sida ku cad warbixinta bangiga adduunka sanadii 2014 waxa lagu qiyaasay dhaqaalaha Soomaaliya ama GDP-ga Soomaaliya 5.7 bilyan way adag tahay in la qiyaaso GDP-ga Soomaaliya saddex sababood awgeed sababta koobaad dalku ma laha xarumo si habsami leh loogu ururiyo warbixinta wixii kayd ee la hayay oo ku burburay dagaalkii sokeeye sababta saddexaad oo ah dabeecadda dhaqaalaha Soomaaliya oo ku tiirsan xoolaha iyo reer guuraaga wayna adag tahay in la qiyaaso GDP-ga Soomaaliya
in lagu daro sanadka xoolihii dhashay, caanihii laga maalay iyo hilibkii laga cunay oo weliba lacag loo bedelo aad bay u adag tahay. Dadka dhaqaalaha Soomaaliya dirsa waxay sheegeen in Soomaaliya ay ku jirto 5 dal ee dunida ugu saboolsan xagga dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga iyo weliba muuqaalada magaalooyinka Soomaaliyeed. Haddaba marka kor laga fiiriyo dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ku tiirsan yahay 2 shay waqti xaadirkan. Shayga koobaad waa xoolaha nool oo boqolkiiba 50 dadyoga Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin kana helaan nolol maalmeedkooda. boqolkiiba 40 wax soo saarka dalku waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha nool. boqolkiiba 80 lacagta qalaadi waxay dalka ka soo gashaa waa xoolaha nool. Iska badaaba ganacsiga xoolaha nool waxa ku tiirsan dadyow danyar ah, mid qala, mid kireeya, mid dulaala, mid gaadhiga ku rara iyo dowladda oo ka hesha cashuur dakhliyeed.